qayb ka nahay Shabelle Bank waxaan qayb ka nahay iibinta waxaan qayb ka nahay bandhiga buugaagta waxaan ugu faa'iideysanaynaa munaasabadan in aan iibino shayrka ama saamiga dadka ganacsatada maadaama deegaankeenu hadda ka hor dib u dhacsanaa bulshooyinkana ma garanaysaa dhaqaalahoodu uu ku xidhan yahay bangiyada oo bangiyada kuwa hadday beero tahay hadday ganacsi tahay hadday guryeyn tahay hadday ma garanaysaa gaadiid tahay bulshooyin maadaama boqolkiiba boqol muslim tahay hadda ka hor mayna fursad u heli jirin inay ay bangiyada la macaamilaan oo ka qaataan adeeg maaliyadeed si kabitaal ay u helaan hadda laakiin waxaa la sameeyey ama deegaankeenu nasiib u helay inuu bank yeesho marka si guud waxaan oga munaasabadan uga faa'iideysanay ganacsatada si guud waxaan leeyahay dib hooga dhacina saami ku darsada shayrka madaxweyne kusoo dhow sahan books waxay qayb ka tahay aan ka nimid Somaliland saddex xarumood baan leenahay buugtii awal dibadda laga doonan jiray oo jaban baan haynaa oo dadku aanay imika ku dhibaatoonin oo qiimo jabanna aan ku keenay anagu buugtu dhammaan aad bay u jaban yihiin waan wadaagay madaxweyne Soomaaliga iyo imika waxaan soo wadnaa insha Allah buugteena Soomaaliga oo si fiican lagu daabaci doono insha Allah dilaha tana waxa kamid tahay hadiyada aan kugu talagalnay adiga khaas madaxweyne waa buug laba buug weey waa buugaha tuste buugta noocyada ha nakaad nafta qaado iyo hawaalo iyo waxa hadiraw labada ما شاء الله هي aad baan kugu soo dhaweynaynaa waan ku faraxsanahay inaad goobteeda nagu soo booqato madaxweyne ahaan aad baan ugu faraxsanahay waxayna buugaagta localka ayad oo qoraayaasha deegaanka soo saareen kuwii kale oo qoraayaasha Soomaaliyeed soo saareen buugaagta guud oo akhriska ahaa oo Carabi iyo Ingiriisi wax walba isugu jira waxaan leenahay dadku ka faa'iideystaan fursadan qiimo dhimis badan oo aan sameynay soo dhawaad buug ay qoreen deegaankeena way kuwan waa ku deegaanka doodan baa noo yaala baraarug baa yaala harkiisa difti qoraahyada cabsida deefsiga dhalinyaranimada taariikhda taariikhda Ethiopia this is very important note World of Nations way kaas Soomaali lagu qoray أرمي سويس كمان صحيح كان هذا وورلد اوف نيشنز وقي أرمي سويس والله مدبعده iyo stationeryga iyo xarunta iibinta buugaagta ee maamulada qaybna anaga daabacna qaybna waa la daabacay waan iibin shirkadan Kibriid waa shirkad ku horle digayga Soomaalida oo xooga saaraysa dhinaca buugta elektarooniga qaabkan e-bookga inaan ku iibino oo dad badan aan ku gaadhno qaabkaas insha Allah rajaynaynaa in dadkuna ay soo dhaweynayaan horumar fiican aan samayno mahadsantahay farsaankan gacanteedan ku sawray kuwan iyo qaybo kale gudaha qaybta carruurta taala aniga sawray sayidka weeye maalan kan طلب وها وندمي بندقنا ما أنت نكسر قيب كلا إصلاح دتك ها أركان ها هي كعنت كسورة بنتين وين يا بس أنت كيف سنة حبيسك هي هاي كوا كلا ندوبات إن شاء الله ويتصالح تصور نيس هاي لقول ديرك اللي جايب شدوي libraries. So mostly we have books here for academic purposes. A few of them are for general reference, but most of the books are for the educational
purpose. These are about 3,200 books. or a donation you see? This is a donation, yeah. Yes. So we also have over there another display. These are from our archives that relate to the Somali heritage, Somali culture, Somali way of life. So we can go and see a few of the pictures. You will brief the media later. Okay. بس يقول دالي الميديا توصل نظرات فترة. ዛግንቶች ይባላሉ። በሶማሌ ክልል አካባቢ ከሶማሌ ጋር ማህበራዊ ኢኮኖሚ ጉዳይ ጋር በቀድሞ ኃይለሥላሴ ዘመን ጊዜ ያላቸው መስተጋብርና መጻጻፎች ኮረስፖንዳንት ታሪካዊ ሁኔታዎችን የሚያሳዩ ናቸው። ለምሳሌ እስማኤል ኢልሚ ለእንደራሴነት በ1962 ለእንደራሴነት ምርጫ ሲያካሂዱ የቅስቀሱኝ የምረጡኝ እንቅስቃሴ ያደረጉ መቀስቀሻ ንግግርና ምልክት ነው ይሄ እና መሰል የሆኑ የሶማሌን ክልል የሚገልጹ ባህላዊ ኢኮኖሚያዊ ማህበራዊ ጉዳዮች የሚገልጹ mudane madaxweyne kusoo dhawo barnaamijka daaris waa barnaamij aqooneed aan ugu talagalay inaan ku kobcino akhriska iyo qoraalka afka Soomaaliga wuxuu leeyahay heerar kala duwan oo ilaa 3 heera dadka hadda afar Soomaaliga baranaya dadka yaqaanay laakiin doonaya inay kobcistaan iyo dadka af Soomaaliga sida fiican u yaqaana laakiin doonaya daqiiqadii inta eray akhri karaan barnaamijka hore waxaan uga fulinay qayb tartana ee dawlad deegaanka waxaanu tagnay magaalada Goday waxaanu tagnay dhagax buur waxaanu tagnay qabri dahar iyo jigjiga abaan marinaanu bixinaynay waxa ku guuleystay 3 dhalinyaro ah oo kii kaalinta koowaad galay aanu siinay $3,000 kaalinta labaadna $2,000 kaalinta saddexaadna $1,000 oo bir ku noqonaysa 160,000 oo bir 80,000 oo bir iyo 40,000 oo bir sidoo kale waxaan abaal marinay intii ugu sareysay dhammaan dawlad deegaanka Soomaalida oo dhan oo Goday ay ka tartamisay gaar ahaan magaalada Cadaadle bay ka timaaday intaasi oo tartanka ka soo gashay intii Goday u timi tartanka dartiis marka barnaamijkaas aan wadnay sharaf bay noo tahay inaad noo timaadid oo aan kugula kulanno bandhiga buugaagta ee jigjiga aniga sharaf ay tahay soo qaybgalo ma sintiin waan la socdaa barnaamijkan TV aan kala socdo hadii aad bagaranaysa waan sii badiya dadaalkiin insha Allah aad buu mahadsantahay ayo thank you madaxweyne soo dhaw runtii farxad bay noo tahay inaan kala soo qayb galno jigjiga book fair waa Hema Books oo Somaliland ka timid mainly waxaanu ka shaqeynaa waxbarashada barbaarta ilaa heer jaamacadeed jigjigana waxaan rajaynaynaa insha Allah inaan mustaqbalka dhow nimaadno hadiyadana si gaar ah ayaan adiga kugu talagalnay waa buug waxa wali tafsiirkii 5 jis oo aanu daabacnay sida Soomaaliga tafsiirkii marka mainly aqoonta ayaan ka shaqeynaa badna senti xarunta kaliya ee xalid ugu iman karo baahida u qabay dhaqanka buugta intiina ku hawlan isbedel ku aragteen dadka hadda dadku buug ma iibsadaan akhriska صح كان سوى انجليش انا كان حاقري فانون لطيف اللي عجبني سوى انجليش انا هذه كان هو فانون او فانون كان لو مويان وذا ريتش اوف ذا ايرث اوكي مكتبته تاغ waxaan moogtaa waa buug aad lagu baahan yahay waayo ingiriiska qofkan aqoonin aqoontaas oo dhan inuu ka dahsanaado ma moogta xanahan waa xanahan mashruuc ahiil turjumid kana waa kii animal farm baaqo shuruuci animal farm baaqo shuruuci weeye kan waa Karl Marx kaas kan Dostoevsky kan waxa weeye Leo Tolstoy Chekhov أو جبريل وبقى كل الدوان هذو مشروعاً وحلا مشروع هيل ترجميد وأنا مشروع لغتها قلينا خدمية مكتبة كعادنا قوانين دولين ترجميد أنا كان ماك بوجن في الديسكور وكلجت شو باكي وحبينا دي عددها لنا ده مقعة معنا بوجن ربا اللي البطابة أنا فعليان مركب فعربي اللي قلت إنجليش كان رئيس كده نمك واني خطر أب حقرة marka bugaagtan kala duwan iyo kuwaas oo loogu talagalay qaar maktabada ka baxo dib lagu soo celinayo taxanaha dib u curasha la dhaxaa marka madbacadana waa madbacad taagan in ay khidmiso maktabada Soomaaliyeed waxaanu hargeysan ka nahay 2018 baa la aasaasay maktabadan maantana wax ka badan 400 buug bay soo saartay waka marka madaxweynaha waqtan fiiri waxyaalahan waa waxyaalihii international imika kan Fanon iyo Gabriel Garcia Marquez وقتاً وابواج كنت جلوبالي
aad iyo aad yani aqoonta adduunka iyo literatureka iyo kuwa ugu waaweyn dee waxay weeyaan marka qofkii af Soomaali qofkii English ku adag yahay wixii jiray Soomaali ku fahmaya wuxuu aqoon ashcalo كان متسلق على باب جهنم كان واكي حسين نور باقري باب جهنم كان وحكى هذا دعدوين كده كان درت السوقان ترى بها وحوي دنيرتي ديغان ايغون لفتا كود مقتوده wax ku darsaday درت السوقان ترى كود umada Soomaaliyeed oo dhan way sax kuwa marka hadii ahaan baan way ana waan sii gudbino waxaan geeyay librarian geeyay ko badan kala istaan ku daray ayo maasintii